eegayo quruxdaada wajiga furan iyo farxadaada aqoonta badan diintaada gabdhihii iga codsaday sida mataqaanaa qaarka dambe ama boodiyooyinka sida u taqaanaan ama cajalada hilibka fuulo sida la isaga dhimi lahaa marka hore inta aanan soo qaadanin dhowr video oo ku saabsan sida cajalada ama miisaanka qaarka dambe loo sameeyo sidii loo adkeyn lahaa waxaa ka yar horreysiinaynaa wax yar oo hadala oo ku saabsan sida mataqaanaa miisaanku qofka isaga dhimi karo midda ugu horeysa waxay tahay haddii markasta aad doonaysid miisaan inaad isku dirtid ama miisaan iska dhintid waxaa jirto siyaabo loo isticmaalo markii miisaan iska dhimeeyo markii miisaan isku darayo marka miisaan iska dhimayso kow cuntadii miisaan waxa keenaya miisaanka ugu badan waa cuntada iska ilaalinaysaa okay inta kuwan oo dhan aad sameynin waa muhiim in aad mataqaanaa soo orodid nus saac ama 40 daqiiqo soo orodid marka aad orodkaa soo sameysid yaa isagana wuxuu ka caawinayaa in mataqaanaa jidhkaadii oo kulul aad exercise-kan ama cashirkan si fiican u qaadatid u sameysid markasta jidhkaada waa inuu kululaado oo uu noqdo waxa aad sameynaysid mid qaadan karo mid mataqaanaa diidiyuuna noqonin oo xanuunka mataqaanaa markaasba dareemo haddii aadan orod soo sameynin oo soo kulayn wuu diidayaa ma qaadanayo iska ilaalinayaa marka jidhkaada uu furaanayaa uu qaadanayaa markaas mataqaanaa jidhkaada sidii la rabo u qaadanayaa فيديو كله جديد طبعا مركز سي فيديو waxaad sidaysaa micno ma soo kordhinayo boodboodkan waayo ma taqaanay boodboodka kugu soo sheegaya inaad boodboodid kugu soo jeedinaya yes boodboodka aad boodboodaysid wuxuu ka caawinayaa in jidhkaada dhan uu ruuxmo jidhkaadan aad arkaysid uu ruuxmayo uu kululaanayaa marka uu kululaado barurta ku jirto iyo faadka ku jirto iyo ka gubanayo maxaa lahaa عادياً درجة دبك مركز لصار واحد كليو والدبك ونقبه so شيء كذا برد كتيرتو واحد كلينا يوا exercise كان ونقبيه ميت كان أديات بكوجو في عيني هاي عجلة هذا نو في عيني هاي ميت كان عندنا تقعنا أديات سو كلينا سو قبيسه سمينيسا هاد فيديوغان aad arkaysid wuxuu yahay sida cajalada kore loo sameeyo 5 jeer oo min 10 istaagaysa oo fadhiisanaysa sida halka aad ka arkaysid marka aad sameynaysid waxaad dareemaysaa xanuun ka dareemaysaa kaliya boodiyooyinka oo inta hore ah dhabarkaadana sida uma jibinaysid sida adigoo aad fadhiisanaysa oo istaagaysa waxa ugu horeeya ee ka caawinaysa waxay tahay in aad ay ku adkaato meesha aad mataqaanaa sameynaysid hilibkaadana hilib xoog loo adag midkan markaad sameynaysid isagana lowga yaad dhulku taabsiinaysaa meesha lowga hore aad mataqaanaa sidiisa u taagnaanayo lowgan dambe aad iyo aad u laabaysaa labada lugoodna iskuma dhaweynaysid fiidiyogan
aad iyo aad inuu ku caawin doono oo mataqaanaa nafsadaada aad wax weyn uga bedeli doontid sida nafteeda u xaqiiqsanahayba u xaqiiqsanahay inuu ku caawin doono oo wax weyn isaga bedeli doontid marka haddii wax weyn aad isaga bedeshid aad nafsad ahaanta ha ka hakranin asxaabtaada kale dhalinyaradaada kale walaaladaada ha ka hakranin marka waxaad sameynaysaa adigana haddii aad nala socoto nala socotaa kuwa aan nala soconina calaamada cas baad sameynaysaa calaamada cas haddaad taabatid wax walba oo soo geliyo way ku soo gaarayaan bilaa sharuud haddii kale hadda fi youtube-ka casri baa laga dhigay ma ku soo gaaraya haddii kale marka calaamada yar baa ka hortaagan fikradaadana aad iyo aad bay muhiim ugu tahay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.